السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنة كمركز السود واضح أدي هذا ومهزنتين ما أنتوا قميص وأنا أفرت بيش سجالة سبتمبر سنة كلابدا كون يشان يلا باتنك مقال كان محاربة إن ندي كل وذاقه معمول كمدحوين ترامب ومعلمه قدام بيجي شن قول درو وكلا دوان وكلا كل ما يقار كم إذا محكمة لها فدرالك يوليبا كور رعفانك كيساس فربضان أو السعودي ومدحوينها لجهور استاجي وحكم إذا شلي maxkamadda racfaanka ayaa madaxweyne Trump waxa ay ka diiday isticmaalka sharcigii Alien Enemy Act uu ku masaafurinayay dadka wadanka sharci darrada ku soo galay gaar ahaan kuwa uu ku tilmaamay inay gaangiska iyo dambiilayaasha ay yihiin. Waxaa sidoo kale jirta in toddobaadkii hadda la soo dhaafay dhammaadkiisii garsoore federaal uu ka hor istaagay masaafurinta ilaa iyo 600 oo carruur ah oo wadanka Guatemala u dhalatay oo wadankooda dib loogu celinayay. waan idila wadaagaya sidoo kale garsoore kale oo federaal ah ayaa waxa uu sharci darro ku tilmaamay ciidamadii isugu jiray National Guard iyo Marineska oo madaxweyne Trump u diray bilihii June iyo July gobolka California oo u diray ayaa sharci darro uu ku tilmaamay. sidoo kale maxkamadda racfaanka ayaa sidoo kale waxay sharci darro ku tilmaantay in canshuurihii madaxweyne Trump uu ku soo rogay inta badan wadamada caalamka arintaasi oo hadda maxkamadda sare u gudbaysa. iyo ugu dambeyntii shalay galinkii dambe ayaa garsoore federaal ah waxa uu sidoo kale dacwadii ay jaamacadda Harvard ka gudbisay maamulka Trump maadaama uu ka joojiyay lacag 2.2 bilyan oo heli jirtay dalabaad uu ka dalbaday markii jaamacaddu ay diiday ayaa maxkamaddu waxay tiri lacagahaas waa in maamulka Trump uu soo fasaxaa si sharci darro ah ayuu uga kansalay. marka arrimahaasi oo idil ayaan rabaa inaan idila wadaago iyo sidoo kalena waxyaabaha sharciyada ah ee ka dhalan kara in aan idin soo gudbiyo intaan u guda gelin bal marka hore soo dhawaad aan ku bilaabay maamulka madaxweyne Trump waxaan ognahay markii uu xilka la wareegay masaafurin ballaaran ayuu waday. madaxweynuhu waxa uu adeegsaday bishii March sharciga la yiraahdo Alien Enemy Act oo loogu talagalay wadanku markuu dagaal ku jiro in wadanka uu dagaalka kula jiro dadkiisa oo Mareykanka joogo uu u masaafuriyo. sharcigan xilliga dagaalada in Mareykanku uu dagaal ku jiro ama duulaan lagu soo qaaday ama ugaarsi cadowtinimo uu jiro ayaa loogu talagalay in la adeegsado. laakiin madaxweyne Trump bishii March ayuu adeegsaday waxaana uu ku masaafuriyay 137 qof oo uu ku tilmaamay inay ahayn gaangis ka tirsan kooxda la yiraahdo Trinidad and Tobago oo TDA loo soo gaabiyo oo wadanka Venezuela waxaana dadkaasi uu masaafuriyay wadanka El Salvador. haddaba madaxweynuhu waxa uu doonayay inuu sharcigaasi sii adeegsado dad badan oo wadanka uga masaafuriyo. laakiin shalay ayaa maxkamadda racfaanku arintaasi ka soo horjeesatay waxaana ay ku tilmaantay in uu sharci darro yahay in madaxweynuhu uu adeegsado sharcigaasi la yiraahdo Alien Enemy Act oo qarnigii 18aad la isticmaali jiray. waxaa la yiraahdaa Alien Enemy Act 1798 marka qarnigii 18aad ayaa la isticmaali jiray. haddaba marka madaxweynuhu waxa ay maxkamadda racfaanku ay tiri awoodiisa ayuu ka tallaabsaday markii uu isku dayay in uu isticmaalo sharcigaasi dadka aan u dhalan Mareykanka waxaana loogu talagalay Mareykanka wadan kale oo cadowtinimo ay kala dhaxayso inuu adeegsado. walow hadda Venezuela iyo Mareykanka aysan isku fiicnayn oo Mareykanku lacag fara badan uu dul dhigay madaxweynaha wadanka Venezuela Nicolas Maduro uu yiri waxa uu gacan siiyaa kooxahan hadda Trinidad and Tobago la yiraahdo oo muqaadaraadka ka ganacsada isla markaana lacag ayuuna taageeraa lacagna isaga waa ay siiyaan. hadda madaxweynahaasi ciidankiisa heegan ayuu geliyay Mareykankuna ciidamo ayuu u diray badaha ka agdhow wadankaasi Venezuela marka waxaba laga yaabaa inuu dagaal dhaxmaro hadda labada wadanba heegan ay ku jiraan oo mid waliba midka kale waxa uu leeyahay in uu ma soo dhawaan karo. walow Mareykanku uu sheegay inuusan duulaan ahayn haddana labada wadan xiriirkoodu ma wanaagsana. marka madaxweynuhu sharcigaasi ma adeegsan karo ayaa maxkamadda racfaanku ay tiri. 3 garsoore ayaa maxkamadda racfaanka fadhisay. mid waxa magacaabay Bush, midna waxa magacaabay Biden, midna waxa magacaabay Trump. kii Trump oo magacaabay waxa uu yiri madaxweynuhu waa isticmaali karaa. garsooreyaasha mararka qaar madaxweynaha magacaabay inay la safanayaan ayay u muuqataa. labadii kalena way ka soo horjeesteen marka maadaama labo ay diiday midna uu ogolaaday inta badan ayaa la raacinayaa majority leaders minority waaye. sidaas darteed ayaa marka waxa lagu tilmaamay in madaxweynuhu uusan adeegsan karin sharcigaasi la yiraahdo Alien Enemy Act isla markaana uusan ku masaafurin karin dadkaasi. sharcigan Alien Enemy Act madaxweynaha wuxuu awood u siinayaa in wadanka uu ka masaafurin karo dadka aan Mareykanka u dhalan ee ka soo jeeda wadan Mareykanka cadow ku ah laakiin hadda arintaasi ma taagno. sidoo kalena waxa la isticmaali karaa
oo madaxweynuhu uu ku dhawaaqi karaa marka dagaal lagu dhawaaqo oo wadan uu dagaal kula jiro ayaa sidoo kalena haddana ma muuqata ayay tiri maxkamaddu in Maraykanku wadan kale uu dagaal kula jiro ama Maraykanka duulaan lagu soo qaado ama sidoo kalena ay jirto ugaarsi wadan kale kala dhaxeeya Maraykanka. dacwadaas xilligaasi Trump uu masaafurinayay kooxdaasi Venezuela ka soo jeeday 137 qof waxaa laga kala masaafurinayay Texas, Mississippi iyo Louisiana dhammaantoodna waa gobollo Republicana. sharcigan marka waxaa la isticmaalay 1812 iyo labadii dagaal ee adduunka kii koobaad iyo kii labaad. marka arrintaasi sharci darro ayaa lagu tilmaamay. dhinaca kale axadii la soo dhaafay Trump waxa uu isku dayay in caruur wadanka Guatemala ka timid uu wadanka Guatemala dib ugu celiyo xilli aroora oo 9 saac 8 saac habeenimo ayaa la ogaaday in diyaarad uu ka saaribay gobolka Texas. garsoore ayaa isla markiiba soo faragelisay waxaana la yiri ma masaafurin kartid caruurtaasi. Maraykanku waxa uu ku doodayaa in caruurtaasi waalidiintood la raadiyay isla markaana wadankaasi Guatemala ay joogaan dibna loola midayn dowladda Guatemala arrintaasi uu kala xiriiray. Maraykanka waxaa jirta caruur muqallasiin ay waalidiintooda ay u soo dhiibtaan Maraykankana sidaasi lagu soo geliyo oo aqaan gaarin. sharci marka waxaa jiray ilaa iyo sanadkii 2002 wasaaradda caafimaadku qayb waxay leedahay dhinaca qaxootiga u qaabilsan. marka in wasaaradda caafimaadku ay gacanta ku hayso qaybteeda qaxootiga u qaabilsan caruurta wadanka Maraykanka soo gasho oo waalidiintooda aysan la socon. marka Maraykanku waxay leeyihiin dowladda Guatemala ayaan la xiriirnay waalidiintoodiina waan helnay waxaan doonaynaa inaan dib ula midayno. waxaana maxkamaddu ay sheegtay garsooruhu yiri caruurtaasi dhibaato ay kala kulmi karaan haddii wadankooda dib loogu celiyo qaarkood. marka diyaaradaha xitaa qaar caruurtu waa ay ku jireen mid ayaa xitaa duushay ayaa la leeyahay oo dib loo soo celiyay iyadoo weli hawada Maraykanka aan ka bixin. marka 14 maalmood ayaa maamulka Trump uu haysta arrintaas inuu rafaan ka qaato waxaana laga yaabaa arrintaas in ilaa iyo maxkamadda sare inay u gudubto. xukunka kalena haddii aan u gudbo waxaa jirta in madaxweyne Trump bishii June ciidamo ilaalada qaranka oo militariga iyo kuwa Mariniska uu geeyay gobolka California meelo kala duwan si ciidamada ICE oo howlgallada dadka sharci darrada ah ay ku qabqabanayeen halkaasi ay uga sameeyeen. garsoore federaal oo magaciisa la yiraahdo Charles Breyer ayaa muddo 3 maalmood markii arrintaasi uu dhageysanayay gudoomiyaha gobolkaasi California Gavin Newsom ayaa dacwadaasi gudbiyay. madaxweynuhu ciidamada National Guard marka uu howlgelinayo waxaa qasab ah in uu codsi ka helo gudoomiyaha gobolkaasi. hadda Trump waxa uu leeyahay xitaa uu ku hanjabayaa in Chicago oo gobolka Illinois ka tirsan iyo Baltimore oo Maryland ka tirsan iyo waliba New York uu ciidamo u diri doono maadaama uu leeyahay dambiyada ayaa ku batay. waxaan ognahay sidoo kale caasimadda DC 12 bishii hore inuu xaalada degdeg ah intuu ku dhawaaqay ciidamadii howlgeliyay. hadda waxa uu leeyahay howlgalkaasi waa uu dhammaan rabaa oo dambigii waa la cirib tiray. maayarka magaalada caasimadda DC waxay tiri 10 bishan ayaa ay ku eg yihiin joogitaanka ciidamada militariga ee caasimadda DC. marka garsooruhu waxa uu yiri Trump waxa uu ka talaabsaday awoodihiisa markii uu howlgelinayay ciidamada militariga oo California uu geynayay. waxaana jira sharci 150 sano jiray oo ah in ciidamada militariga iyo ciidamada kale ee gobolka uu leeyahay aysan wada shaqayn karin. sidaas darteed madaxweynuhu arrintaasi waa uu ku qaldanaa. 4,000 oo ciidamada ilaalada qaranka ilaa iyo 700 oo ciidamada Mariniska ayuu geeyay gobolka California ilaa iyo September bishan 10keeda ayana haystaa maamulku Trump inuu arrintaasi racfaan ka qaato. garsooraha hadalkiisa waxaa ka mid ahayd in dowladdu ay samaysay ciidan boolis qaran isla markaana madaxweynuhu uu hogaamiye u yahay. arrintaasina sharci darro ayaa lagu tilmaamay gabi ahaanna waa ay ka soo horjeesatay maxkamaddu. marka hadda kadib Trump ma gobollo kale ciidamo military ah ma u diri doonaa walow hadda gudoomiyaha gobolkaasi ayna Illinois JB Pritzker iyo maayarka magaalada Chicago Brandon Johnson ay labaduba yiraahdeen lama shaqayn doono haddii ciidamo National Guard uu soo diro gobolka Illinois. dhinaca kale canshuurihii faraha badnaa ee Trump bishii Abriil uu ku soo rogay wadamada caalamka intooda badan ayaa sidoo kale maxkamadda racfaanku waxa ay tiri canshuurahaasi waa sharci darro maxaa yeelay Congress-ka ayaa iska leh awoodda in canshuuro wadamo lagu soo rogo. madaxweynuhuna Congress-ka ma uusan kala tashanin sidaa darteed awoodihii ayuu ka tallaabsaday waxayna ku tilmaameen in ay sharci darro tahay canshuurahaasi madaxweyne Trump oo wadamada caalamka uu ku soo rogay. maxkamadda racfaanku waxay tiri canshuurahaasi madaxweyne Trump uu ku soo rogay wadamada caalamka markii uu dhaqan gelinayay si sharci darro ah ayaa lagu dhaqan geliyay ilaa October 14keeda ayaana uu haystaa in madaxweynuhu arrintaasi ay racfaan ay ka qaataan. marka madaxweynuhu awoodaha uu isticmaalay waxa maxkamaddu ku tilmaantay inay tahay mid sharci darro ah
oo Congress-ku iska lahaa. Haddii Mareykanka marka maxkamadda sare ayaa arrintan u gudbaysaa, Trumpna hadda maxkamadda sare waxa uu weydiistay arrintan si degdeg ah inay go'aan uga gaarto, isla markaana ay weliba dhinaciisa u xukmiso. Haddii marka la yiraahdo sharci darro ayay ahayn canshuurahaasi, dowladda Mareykanku waxa ay dib u celinaysaa lacag gaaraysa ilaa iyo 2 bilyan, maxaa yeelay dadka waddanka alaabaha keena ayaa lacagta taarifka bixiya oo waddanka alaabaha u soo dhoofiya. marka bilihii u dambeeyay dowladdu lacaga fara badan oo 2 bilyan kor u dhaafaysa ayay qaadatay. haddii marka maxkamadda sare ay tiraahdo sharci darro waaye oo maxkamadda racfaanka ay ku raacdo, dowladdu waxay dib u celinaysaa lacagahaasi faraha badan. ugu dambeyntii Trump iyo waxaan ognahay jaamacadda Harvard dagaal fara badan ayaa ka dhaxeeyay. bishii Abriil 11 ayaa aqalka cad waxa uu jaamacadda Harvard ka dalbaday dalabaad fara badan oo ah inay wax ka bedesho siyaasadaheeda. arrintaasina 14 Abriil jaamacaddu waa ay diiday. sidaa darteed Abriil 21 jaamacaddu maxkamad ayay ku dacweysay maamulka Trump kadib markii lacag 2.2 bilyan ah uu ka joojiyay oo dowladda federaalka ah ay siin jirtay. sidoo kalena Trump waxa uu joojiyay in jaamacaddu ay diiwaan gelin karto ardada ajnabiga ah oo wadamada caalamka ka imaan jirtay. waxauna kansalay sidoo kale fiisayaashii ardada soo dalbanaysay oo caalamka ka imaanaysay oo waxbarasho ahaan jaamacadda Harvard u imaanaysay. marka shalay garsoore Boston fariista ayaa waxa uu ka soo horjeestay arrintaasi, waxauna uu xukmiyay dhinaca jaamacadda Harvard oo wuxuu yiri maamulka Trump arrintaasi sharci darro xorriyatul qowlka ayay ku xadgudbaysaa. sidaa darteed waxaa loo baahan yahay in iyadoo lala dagaalamayo in yuhuud nacaybka Trump marka waxyaabaha uu ku hayay jaamacaddaas waxaa ka mid ahayd in yuhuud nacaybka aysan la dagaalamin. sidaa darteedna dalabaad fara badan uu u gudbiyeen ay ka soo horjeesteen. marka garsooruhu wuxuu yiri iyadoo yuhuud nacaybka lala dagaalamayo haddana si lamida waxaa loo baahan yahay in la ilaaliyo xuquuqda oo ay ka mid tahay xorriyatul qowlka. sidaa darteed ayaa marka waxaa maamulka Trump hadda uu ku qasban yahay in lacagihii uu siin jiray oo 2.2 bilyan ahayd oo u fasaxo jaamacadda Harvard, iyadoo weliba arrintana laga yaabo ilaa iyo maxkamadda sare in la isla gaaro. 84 bog oo xukun ah ayaana garsooruhu ay soo saartay oo arrintan ay leedahay jaamacadda Harvard waxaa lagu xadgudbay xuquuqdeeda. sidaa darteed sharci darro ayay ahayd in lacagahaasi laga joojiyo oo baaritaano kala duwan oo dhinaca kansarka ay la mid yihiin ay ku samayn jirtay. marka ilaa iyo 5 mar ayaa maamulka Trump uu ku guuldaraystay maxkamadaha racfaanka ama maxkamadaha federaalka oo dacwado fara badan ay ka socdeen oo loo gudbiyay. welina kuwo kale oo socda ayaa ka mid ah oo ayaa jiro oo xitaa qaxootiyadii ay ka mid yihiin in waddanka dib loogu fasaxo oo hadda maamulka Trump xitaa arrintaasina maxkamadda sare inay gaarto laga yaabo kadib markii maxkamadaha hoose ay yiraahdeen qaxootiga gaar ahaan kuwii haystay viisayaasha oo waddanka inay imaadaan ahayd waa in dib loo keenaa oo qoysaskii qaarkoodna xitaa loo ogolaaday inay imaadaan laakiin weli kuwo kale la haysto oo maamulka Trump uu diidan yahay. marka arrimahaasi oo idilna waa ay jiraan waxyaabaha ka soo kordho oo idinla soo socodsiin doona. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta. intaan mar kale kulmi doono saaxiibkiin cilmi waaro idinla sida iyo nabadgelyo.